السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله دمانتي مركز دون الدافع كجوكتان وأنا جاهنا هذيك صوت دبدعي لكن وقت جي إنه بلا هين أيا لجاري كورسيجان هالضبط أنت أنا أوجد قلي محندوني إنه هردع وسميه وحن أنا ونفهانتي إذا كبرتي مهمة هردع وإلى هاي مركان بوك سوق هذا واجه روح عادي هاي شرتي إن هردع بوك أنت كبودو أن كبعدنا شابتر ككوبات كقبته markaan dabayaaqadiisa buuga tagana aan isarko anigoon si fiican ba buugi u fahmin ama sidii looga baahnaa in aan waxyaabihii buuga ku qorna u fahmo aan u fahmin haddaba sababta hordhacu muhiimka uu u yahay waa furayaashii aad buuga macluumaadka ku jira ama waxa hordhac loo samaynayo macluumaadkiisa faa'iidada ugu badani meesha sida aad u heli lahayd sida ugu sareysa tayada ugu wanaagsan sida uga miro dhalin lahayd waa meesha ay dhex taalo haddaba waa furayaashii waxa lagu soo wado ee aad doonaysid inaad baratid taasay muhiim u tahay caado ka dhiga haddaad buug bilaabaysid luqadda doonaha ku qornaado marka u horeyso horudhiciisa akhri badi maanta way dhici kartaa marmarka qaarkood in qofka buugga qoray uu naftiisa iskaga sheekaynayo oo markaad xoogaa cabaar wadid aad arkaysid laakiin taa laftigeedu xataa waxaad ka dhexelaysaa ujeedadii keentay ka dambeysay buuggan inuu qoro waayo marka aad aragtid inuu sheekadiisa ka soo bilaabay dabcan buuggu wuxuu ku saabsan yahay baa ku xigta haddaan intaa ka gudbo yaanan idinku yara dheeraan waxaan halkan uga mahadnaqayaa walaalahayga qaaliga ka mid ah ustaad mubaarak haadi oo run ahaantii waxaa la yidhahdaa waxaa sponsor qofka runtii qofka bini aadamka libtiisa lama qariyo isagaa ka dambeeyey in classkan aan waqtigan bilaabo asbuucii hore dabayaaqadiisii baan wada hadalnay waxaan wada hadlaynay malaha 4 saacadood ka badan baan wada hadlaynay ustaadka run ahaantii qofka aan ogayna wax ka faa'iidayo aan ogahay in aan wax ka baranayo kama daalo hadalkiisa kama caajiso gaar ahaan markuu qofku maaragtay xikam yahay oo xikmado fara badan ay ka buuxaan oo waxyaabo fara badan oo nolosha ka mid ah waxyaabo badan oo aadan horay u ogeyn waxyaabo badan oo aad ogeyd laakiin aad u baahnid in lagugu baraarujiyo hubaal kama daalaysid hadalkiisa dabcan sax adigu waa laga yaabaa saaxiib saas leedahay marka run ahaantii markaan mubaarak la hadlayay wax fara badan oo uu igala hadlay waxaa ka mid ahaa classkan Englishka saa darteed isaga ayaan leeyahay waad ku mahadsan tahay dhammaantiina waxaan rajaynayaa in aad maanta ku tiraahdaan waad mahadsan tahay dabcan channelkiisa mubaarak haadi haddaad raadisaan waad ka helaysaan YouTube-ka intaa markaan ka soo gudbo waxaan rabaa hordhaca aan samaynayaa buugga ama meeshan wax idinka baraya ma hordhac inaan u samaynayo waa laga yaabaa inaad isweydiinayso tirada ayuu ma naftaada ka bilowdo tirada horta Englishka sidee baad ku baratay laakiin dabcan taas waxay noqonaysaa wax dheer inaan idinka sheekeeyo mar baan idin soo dhexgelin doonaa casharada dhexdooda oo aan kaga hadli doonaa ama mar baa dhici doonta aan si gooni uga hadli doono haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina gaarsiiyo oo naftani ina ku sii jirto haddaba waxaan maanta rabaa in aan fiirino 3 waxyaabood intaynaan koorsadan inaan bilaabin waa marka koobaad 3dan waxaan ku qoray halkan midda koobaad waxay tahay ee u baahan qof kasta oo idinka mid ah are you ready sabab baa jirta aan Englishka ugu qoray waayo waxaan baranaynaa waa luqadda Englishka ma baranayna Soomaali saa darteed baan waxaan ku qoray English baan ku qoray si ay inoogu sahlanaato waxyaabo badan oo xataa afkeena ay ugu sii fududaato are you ready midda kale waxay tahay markaan are you ready dan dul istaago luqaddan sababta aan u baranaya muhiimka ay igu tahay maxay tahay horta maanta waqtigan aynu joogno luqad gooni ah oo inaad baratid wax ka hortaagan ay jirtaa ma jirto haddaad fursad u haysatid luqadaha adduunka dhan haddaad baran kartid baro fursadda haddaad haysatid baro luqad kasta baro luqadda carabiga barashadeedu wax fara badan diintaaday si weyn kaaga kaalmaynaysaa oo barashadeedu taas muhiim bay dhammaanteen inoo wada tahay midda ku xigtaa waxay tahay luqaddan Englishka maxay aniga muhiim igu tahay taa waan gartay tani waxay muhiim kugu tahay tusaale ahaan adigu waayaha kugu soo socda dunidu soo noqonaysa ma garanaysid waxaana dhici karta inaad safar aadid markaad safar aadid ba waxaad tagtaa airportkii international arrival ba halkan kugu qoran halkan baggage claim ba kugu qoran haddana ma akhrin karaysid qof baa damcaysa inaad istaajisid oo weydiisid oo tiraahdo boorsooyinka dadka wadanka soo galay ee hadda soo galay ee dibadda ka yimid xagee laga doontaa ma fahmaysid musqul baa u baahatay musqul xageen ka helaa ma garanaysid xagee bay ku taallaa makhaayadda shaaha lagu gadaa ma garanaysid waxyaabo badan oo waxaa jira biyaan cabba intee ka helaa ma garanaysid qof baa kuu yimid oo kula hadlay ma fahmaysid wuxuu ku yidhi haddaba saasay muhiim ugu tahay waan ogaa inaad isleedahay maanta Soomaaliyan joogaa meel uma socdo waxba kama faa'iidayo waxa kale oo ka faa'iidaysan kuu sheegaya haddii luqaddan aad barato si fiican aad u barato maanta aad dhexda u xiratid waxaan ku hubaa
in ay macquul noqon karto in aad maalin uun private school furatid oo markaa aad dadka wax bartid adigana sidaa ay ilaahay subxaana wa tacaala oo irsaaqad halkaa kaa siiyo way dhici kartaa ha yaraysanin marka saa darteed marka waa muhiim in aad baratid oo waxay muhiim kuugu tahay waxaa dhici karta inaad marka qaarkood sometimes waxaa dhici karta inaad buug aragtid buuggan English buu ku qoran yahay waxa uu ka hadlayana ma fahmi karaysid maxaad u baahan tahay marka in luqadda haddaad aqoon lahayd maxaa dhacaya haddaad luqadda aqoon lahayd waad fahmi lahayd wixii ku jira oo faa'iidana waad kala dhex bixi lahayd waxyaabaha adduunka ka jira dhammaantood af Soomaali iyo af Carabi iyo af Sawaaxili iyo kuma qorna iyo af Ethiopian kuma qorna afku doona ha noqdo afka labaad ee Soomaaliga kuu dheeraa taqaanid kuma wada qorna saa darteed muhiim waxay kuugu tahay naftaada in aad fahantid waayo way dhici kartaa maalin uun in aad u baahatid maalintan English baranayay oo aan iskuul aadayay oo habeeno badan casharada aan diyaarinayay oo macallinka xataa casharka markuu noo dhigo ka bacdi gurigiisa inta ugu tago oo raadiyo oo guriga tago ayaa waxaa dhici jirtay in la igu yiraahdo wuu maqan yahay oo guriga hortiisa aan fariisto oo markaa ka bacdi markuu yimaado aan ku iraahdo waxaana iga qaldamay ma ii qori kartaa waa laga yaabaa inaadan rumaysanayn laakiin dadkii waagaa joogay i garanayay way fahmayaan way garan karayaan dadaalkan u mari jiray ilaahay subxaana wa tacaala oo keliya ayaa garanaya markaa kadib ilaahay subxaana wa tacaala waxyaaba badan oo isii kaalmeeyay way jiraan waa idin la wadaagi doonaa biidin illah laakiin su-aasha koobaad waxay tahay adiga kugu wajahan ha ka dhigin koorsadan waxaad inta iska daawatid sidii video motivational ah ama aad iska yara eegatid oo aad ka dhaqaaqdo dhinaca iskaga tuurtid yuusan noqonin ha noqdo wax naftaada aad ogtahay inaad wax ka baranaysid haddii aad maanta aad wax uun kororsanaysid cilmiga intay doontaba ha noqotee daqiiqadahaaga ugu qaalisanee haysataa waa intaad naftaada wax kusoo kordhinaysid laakiin naftaada intay nusqaani ku dhacayso waxba kuma soo kordhinaysid nusqaan baa kugu imaanaysa uun ma ogiye nolosha wax kalood ka dheefaysaa ma jiraan saa darteed haddaad ogtahay wax uun inay kugu soo kordhi karaan meeshaad ogtahay in wax kaga soo kordhi karaan ha ka fogaan waan ogahay qaarkiin waad ku caajisi doontaan waayo badankeen caadadeenna waxay tahay mararka qaarkood waxaa dhici jirta masaajidka markii darsi laga bixinayo kitaab baa la bilaabayaa kalaaskan waxaan soo wada fadhiisanaa masaajidka in badan oo dadkii ka mid a aan isla wada bilownin waxaa dhici jirta markii gabagabada kitaabka la joogo dad aad u yaroo fara ku tirsa kusoo hari jiray maxaa dhacay mushkiladdu maxay ahayd waayo diyaar maysan ahayn they were not ready waxay ka ahayd un keliya kalaaska tag sheekha hor istaag dhowr beri dhegayso kadib way ku caajisayaan haddii marka aad isleedahay uun iska dhegayso laakiin iskaga caajis 2 daqiiqo markaa maqashado 4 xaraf qortid ka tag hadday kaa tahay way kugu adkaanaysaa luqadda inaad baratid 5 sano soo socota waa dhegaysan doontaa videoyadan waxna kaama bedelayaan laakiin waxay wax kaaga bedelayaan sidii class in aad fadhido waayo hadda adduunka marka pandemigan u dhacay iyo coronaviruskan adduunka soo kordhay adduunka intiisa ugu badan wadamada qaarkood gaar ahaan hadda wadankan Mareykanka joogo wuxuu isu wada rogay online classes inay wixii wada noqdaa online in laga wada qaato macallin saanad u daawanaysid baad kii wax baray saa darteed taasaa waxay caddayn cad u tahay in qofku online-ka wax ka baran karo marka ha yaraysanin macallin haddaad hor istaagtid iyo haddaad maanta saan ii daawanaysid ba waxba isma dhaamaan labaduba markaad hor joogtid su-aalun baad weydiin kartaa oo keliya laakiin si kale kuma kala gedisnin marka waxaan ku leeyahay ha yaraysanin adigu awooddaada waxaad samaysaa waqtiga aad baranaysid ama aad doonaysid inaad casharkan dhageysatid video dhegta intaa gashatid dhegtan kalena tv-ga ka dhagaysan dhegtan intaa gashatid dhegta kalena saaxiibka ama cid kale ha ku dhagaysan meel cidla ah fariiso oo gooni ah sidii inaad class ku jirtid oo kale shibdheh casharka daawo qor taasaad ku baran doontaa hubaal waa kuu hubaa muddo ka bacdina waxaad arkaysaa adiga oo luqadii si fiican ugu hadlaya oo si fiican ula qabsaday waad baran kartaa maskaxdeedii waad leedahay kartideedii waad leedahay qofnimadeedii waad leedahay naftaada ha yaraysanin awooddu ilaahay ku sii way ka ballaarantahay intaad adigu arkaysid marka the first question waxay tahay are you ready diyaar ma tahay haddii aan isla hubinay diyaarnaan nahay waxay noqonaysaa diyaarnimadeeda kow waa in layga helo book waa in layga helo a book waa inaan book haysta marka hore maxaa igu xigo karo laga baahan yahay a pen waa inaan qalin haysto labadan markaan helo waxa ku xiga maxay tahay oo labada tan ii dheer maxaa laga baahan yahay midda ku xigta maxay too laga baahan yahay waxaa lagaaga baahan yahay time waqti inaad siisid wax walba way kuu sahlanaanayaan way kuu fududaanayaan inta aad waqti siinaysid diyaar garowgaaguna uu ready aad tahay oo aad dhamaystiran tahay si walbaba naftaada waqtigaaga xoogaaga inaad diyaar u tahay u fiirso maanta private school Soomaaliya ku yaala haddaad tagtid lacag baa lagaa qaadi lahaa sax free kumaad barateen
$15 $20 baa lagaa qaadi lahaa sax halkan iyadoo macallinkii uu ku hortaagay oo kalaad u baranaysaa ayadoon lacagba lagaa qaadaynin waxba lagaa rabin just uun koorsiga inaad daawatid qoratid kabacdi aad dhaqan gelisid ayay u baahan tahay oo keliya midda labaad waxay tahay tan haddaan isla hubinay oo aynu isla hubno waxaynu saaraynaa check mark waa saxnay midda labaad maxay tahay midda labaad waxay tahay decision go-aan ma leedahay go-aan cad oo aad wax ku bilowdid ilaa mirihiisa aad aragtidna aadan joojinin ma leedahay oo go-aan miyaad meeshan ku timid mase waa iska timid un kinda iska tijaabi baad ku timid if your main maaragtay awooddaada ay noqoto un iska tag meesha iska tijaabi maybe I will see wuxuu dhahaya bal aan fiiriyo if that's the case I'm 100% sure you're a complete failure waad ku guul daraysatay tallaabadii ugu horreysay wayna kugu adkaanaysaa inaad waxba ka dheeftid waayo mentalityga iyo maskaxda aad ku timid waa un bal waa iska eegayaa sida uu yahay dan ka bacdi ka socdo macallimiin qallafsan oo adag oo hadal adag oo haddaad wax weydiisid xataa sida ay tahay aan kaagaga jawaabayn oo bay soo maray haddana saasoo ay tahay uma aabba yeeli jirin waan ka baran jiray wax intaa u tagaan weydiin jiray su-aasha anigoo og in uu igu adkaynayo mintuu saa ii fiiri leeyahay wax yar ka bacdii soo laabo oo si xun indhaha igu gubaya ayaan haddana saasoo ay tahay dadaalkayga ugu dambeeya waxaan ku bixin jiray sidii aan wax uga baran lahaa marna kamaana caajisi jirin marka saa darteed adigu naf ahaantaada ha caajisin ha yaraysanin waxba marka go-aan ma ku timid meeshan haddaad go-aan leedahay oo diyaarka aad go-aan ku dartay waxaan ku leeyahay congratulations waad guulaysatay tallaabadii ugu horreysay waad ka gudubtay midda ugu dambeysay ku xigtaa waxay tahay waa arrin in fara badan dadka maanta nolosheena dhinacyo fara badan saameyn ku yeelatay middaasu maxay tahay fear cabsi cabsi waan ogahay waxa inaan soomaali ku qoray ahayd laakiin maadaama english inu baranayna door bidaan ku qoro cabsidu waxay keentaa in qofku isagoo wixii u jeeda oo qaban kara wax ka celinaya oo hor yaallana uusan jirin in uu ka gabado oo uu samayn waayo ha ka cabsanin luuqadan barashadeeda iyo ku hadalkeeda barashadeedu way kuu sahlanaanaysaa naftigay ku cabsi gelin oo ku oran waxaan kuma hadli kartid wadankeedii ma joogtid wax ku kaalmaynaya male wax ku akhrinaya male maya waxaan kuu hubaa Englishka qaabka aynu anagu markaan xataa soo baranay qaabkan u baranay high schoolka markii iskuulka hoose elementary waxa waa different laakiin markaan xataa kaalmo ahaan u baranayay oo private gooni xataa aanu sii aadayay markii laga soo tago dhinaca kale iskuulka saasoo ay tahay waxa jiray caqabado badan oo yaalay macallinku intuu ku istaajiyo wuxuu ku leeyahay istaag qofka la sheekayso si loo tijaabiyo Englishkaaga dhisma badan oo marka jiray oo xagga dhinaca kale iskuulka aan ka soo dhisanay ayaana kaalmeyn jiray markaan classka nimaano waayo dad waxaan ugu imaan jirnay classka ama private schoolka aan iskuulka la soo dhiganin laakiin kan iskuul ugu horeeyo markan waxbarashada qaybta ugu horeysay ka jooga halkan marka wax badan bay marka aduna fahantaada cabsi wax la yiraahdo naftaadu haday kugu beerto ka jar waayo wax aadan baran karin ama noqon karin shay kasta haddaad mar nooshahay waa macquul inaad noqotaana way kuu sahlan tahay marka go-aankii waa lagaa helay oo waan isla haynaa waxaa kuugu xigta cabsidan inaad ka tallaabsatid cabsidan mar haddaad ka gudubtid wax badan baa kuu hagaagaya nolosha dhinaca doonta ka fiiri saddexdan waxyaabood haddii la isu geeyo nolosheena maanta maxaa dhacaya saddexdan waa saddexda maanta qofku aasaaska u ah inuu shay ku guulaystaba kow inuu diyaar u yahay waxay doontaba ha ka qaadatee labo inuu go-aan adag oo wixii doonaba ha ka hor yimaadeen uu ku socdo in uu qabo iyo saddex oo ah in uusan wax cabsiya u joojinin saddexdani hadday isku darsamaan awood buuxdo dhammaystiran baad helaysaa wax ku baratid intan waa awoodda bini'aadantinimo markaan dabcan idin leeyahay sidan laakiin mar walba awoodda intan ka sarreysaa waa awoodda rabbiga ku abuurtay allah haddaad kaashatidna weligaa ma khasaaraysid awoodan aan anigu inta badan tilmaamaya awooddaada kuleeyahay taada kaliya marna isku hadle kuma oranaya laakiin allah la kaasho saa darteed intani markay isku soo darmaan maxaa dhacaya meelkaan ku qoray waa isu dhaweeyay maxaa dhacaya marka
haddii ay intani isku darsamaan naftaadana aad kaga guulaysatid anything is possible anything is possible wax kastaba waa macquul wax kastaba waa macquul haddaysan shalay macquul ahayn hadday macquul isu rogayaan maxaa yeelay saddexdii caqabadood oo macquul darrada keenay ayaa meesha ka baxay saddexdani meesha hadday ka baxeen waad guulaysatay markaa saddexdan qofka u bartay wadada uu u maraya sidii uu u jeexi lahaa uga gudbi lahaa everything in life becomes possible everything in life nothing is hard haddaa saddexdan ka gudubtid waayo inta ugu badan maanta challenge-ga ina haysta waa nafteenna waxyaabaha haystay ka mid yihiin saddexdani kow diyaar garowba ma hayo oo caajis baa dilay laba go-aankii ma qaadan karo oo daciifnimuu dareemaya saddex cabsi baa meesha ugu dambaysa ku rifaysa tan markuu ka soo gudbo isaga oo kufkacaya tan markuu haddana ka gudbo isagoo sii kufaya tana haddana qabsanaysa marka ugu dambayso noqonaysa albaab uusanba ka dhex bixi karin saa darteed saddexdaa waxyaabood haddaan maanta isla hubinay hordhacyada kale waxyaabaha idiin sahli kara iyo waxyaabaha ku saabsan qaabkan anigu markii hore waxyaabihii maaragtay igu kaalmay Englishka inaan barto kulli dhammaan waxaan idin kala wadaagi doonaa fiidiyoyada ku xiga laakiin hadda waxa ugu muhiimsani waa in lagaa helo ready markaad tahay saddexdaa shay a book a pen and time waxa kugu xigta inaad leedahay decision midda ku xigta waa inaad ka boodid ama overcome waxa la yiraahdo dabcan Englishka markaan baranayna aad baran doontaan is to overcome the fear itself once you tackle this three I'm 100% sure you're gonna win waxaan ku hubaa inaad ku guuleysatid saddexda tan haddaad meel marisid biidin illah dhammaanteen waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu isu wada weydiino inaynu isu ducaynayn fara badan ilaahay inuu nagu kaalmeeyo ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala qof kastana aan leeyahay oo ilaahay weydiinayaa inuu Allah subxaanahu wa tacaala kuu fududeeyo oo maanta ay macquul noqoto in aan maalin uun arko qof walaalahay ka mida oo Soomaaliya meel ka mida jooga oo maanta English ku hadlaya oo ay macquul u noqoto dabcan waxaan u bixin doonaa waxyaabaha aan ka fakarayay bay ka mid tahay waxaan rabaa inaan sameeyo dabcan channel gooniya anu channelkan weyne hadda aad dhex joogtaan baan ku share garayn doonaa fiidiyoda idin kula wadaagi doonaa laakiin markay aan inta soo geliyo ka bacdi waxaan u sii gudbin doonaa ama gelin doonaa channelkayga kale oo aan u bixiyay ama aan u bixin doono haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu magaciisu wuxuu noqon doonaa Ayub Ahmed Academy haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idmo Ayub Ahmed Academy ayaan u bixin doonaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idmo marka waxay noqonaysaa koorsooyinkan oo dhammaantood inkastoo inta idin kula wadaagi doono oo channelkan aad ka heli doontaan koorsooyinka oo dhan waxaan markaa ka bacdi ku shubi doonaa si markaa kayd gooni ah oo loo helana uu u jiro waxaan ku shubi doonaa channelka kale si markaa qofku markuu doonayo inuu dib ugu laabto casharkii isagoo halkan ka qaatay haddana hadhowdii kayd labaad inuu jiro waayo YouTube laskuma halayn karo dabcan waxaan kale oo kaga faa'iideysanayaa sabuurada tan haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala idmo YouTube baan ka hadlayay inaan isku dayo inaan koorsooyin YouTube-ka la xiriira biidinillah iyada laftigeedana in aan bixiyo idin kula wadaago taasoo adigaba laga yaabo inay ku kaalmayn doonto future-kaaga haddaad damcadina YouTuber noqotid in badanoo ina ka mida oo Soomaalida ahna YouTube-ka qaabkay ugu guuleysteen ama qaabkay uga miro dhaliyeen inta badan way qariyaan waayo badankeen ma rabno inaan waxaan anigu ku guuleystay dadka la wadaago waana mushkilad weyn oo ina haysata dhammaanteen marka biidinillah waxaan idinla wadaagi doonaa fiidiyoyada haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idmo intaynu dabcan fiideo kale oo kan lamida ama casharka koobaad ama hordhac aan kaga hadlayo sida Englishka kuu fududayn kartay waxyaabo la xiriira intaynu dib uga kulmayno meel kastoo adduunka aad joogtaan waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh